وعد محمودنا مرادنا لغائه اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على النبي وآله اللهم صل على محمد يعم الآل المصطفى وصحابة ما تباعه. waxaa maanta xaafadda geed jecel ee degmada warta nabadda lagu soo gabangabeeyey rubacii afaraad ee kitaabka weyn ee minhaajka. kitaabkan ayaa waxaa daraasan jiray sheekha caalimka Sheekh Cali Maxamuud Faarax oo loo aqoon og yahay Sheekh Cali Qubays. muddo gaaban uu socday kitaabkan waxaa ka faa'iideystay mashaayikh, macallimiin iyo xeer ka kala timid gobolada qaar iyo caasimadaba. afmeerka kitaabka ayaa waxaa ka soo qayb galay mashaayikh madax uu u horeeyo madaxa guud ee jaamacadda Rashid Cali Cilmi Yare, Sheekh Cusmaan Cali Cilmi iyo marti sharaf kale. ugu horeyntiiba sheekha ayaa dhammaan u laqbeeyay qaybtii ugu dambeeyay ee kitaabka. waxaa sheekhu raximahullah ku qatimay kitaabkiisaan minhaajka sheekhu wuxuu ku qatimay ama rubaca jareexadaba wuxuu ku qatimay abwaabta cidku ku qatimay wuxuuna u qatimay sheekhu tafaa'ul buu u qatimay ayaa leeyahay oo ilaahay naarta مثلا yani ka xoreeyo ilaahay naga xoreeyo saas uu qatimay haddana baabkan oo ummahatul awlaadka ah ayuu sheekhu haddana ku sii qatimay raximahullah ta'ala u sii dawamariyo لأنه قهري فهو أقواها أبواب تأسى وسي معناه وسي حوق بدن محايلي دي قفكي قبر ولداه يعني وحال ليهي قهري بي سيغا حروبي سيجرت سوماها رأس المال وعتق قهرية مركز ساسو مثلا بي يعني وسي قوة بدن يهود إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه قرة عتقد بموت السيد إذا أحبل هدو شخص أوريو أمته قبض أدونس هدو حريو أوريو وفولدت مركا أيضا شو حيا قف نول بيد شو أو أمسي ميتا قف مثلا بدنتا كسواب حي وبنانك وذيمت أو أمسي لبدا مدنا مدلنا ما أيضا شيء ما جو تجيب أي واجب فيه ما فيه غرة أي كواجب يسوي ووح مثلا يعني عاد يرى مضغة وقوابشو أي أوران كران سورة آدم وكسوغان أي هذا كاسي كواجب السمان عتاقات وحروبيسا بموت السيد سيد كموت كيسا أي مثلا بكو حروبيساوي ولو بقتلها أيضا هذا رسم ماذا حكيت هذا الشو حتى هذا أيضا شو حرب مثلا بيعني نقول يساوي محايا لو حاول دليله لخبر أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته سيداس خبر كاسو أروي جبر والبا ومثلا يعني وحويان سيد كذا ولد ولا شيء مر الله مركو انت حرويسا سيداس لغا وري خبر كاس لا سو وريو الشيخ رحمه الله تعالى وحو كهدلي يعني وحو يري أحبل أمته بيرو أمته مركل لغو ليهي يعني waxa laga wadaa man lahu milkun yani wa in qalla naag milku مثلا uu ku leeyahay haday ra milku waxa yaraado bacd yarba han noqday ayaa مثلا yani laga wadaa waxaana kugu daliil ah hadalkii uu cidqiga ku soo hormariyay oo qowl uu soo yiri matiga markaan soo marinay cidqiga uu yiri wastilaadu ahad ash-sharikayn al-mu'siri yasri wa tuyir somaan laba shariik midkood haduu مثلا inta wadiyo macnaha adoonta mushtaraga ay marka uu ka wala dhashado de waxro Soomaan siraaya imaanaysa yasribu yiri Soomaan marka milkiga hadda uu sheegaya amadu walow مثلا yani waxa weey wax yar bahan ayasho meesha uu kuleeyahay sheekhu fawaladat uu kuleeyahay hadda midaas lafteena ka bixine waxa la mid noqonaya istilaadul ahad macnaa asl ahadima labada wadale mid kamid asalkiis ba uureeyay istilaadka marka waa imaanaya sidaas leeyahay waxyaalaha مثلا yani waxa weeyaan لليهي يعني فولدت مركا لليهي وحي علماء ليهين أصغى نول سيدكو أي مثلا بدأ شال ليهو وكو أما وحي دشي بعد الموت بيد الشو مدولي بالله حكمين كرو يعني أو ثابت نقنيسا نسبة ولد كلو نسبين كرو يعني أي ليهو سورة عن مركز سيداس وحي ليهين علماء مرحبا وحا عدانيس إسلام مركي هورا مثلا يعني أودنتي إنو حروبي با مركا عدانيس إسلام ساعدي هوراتو أودنتي هوراك حروبي ساوي هذه حتى مركز إنه حر أيد بمركز يعني وحوي عداني سو
شيخ الكمل وفاز بدعائهم يا فتى ثم علوم الفقه عنه فشا شيخ الكمل شيخ الكمل هو وارث المختار منجي العمى شمس نزل في البرايا الظما. dhammaadkii kitaabka kadib waxaa meesha ka hadlay madaxa jamaacada sheekh cusmaan sheekh cali cilmi isagoo kula dardaarmay ardayda inay ku dadaalaan barashada diinta iyo tadbiiqeedaba. walaalayaal marka wasaycuudu qariiban baa lagu jiraa diinta noocaas waxay rabtaa in la barto in la fahmo yacni qof kastoo naga mida markii loo bilaabayo casharka waxaa lagu bilaabay xadiid alfaadiisu ay yar tahay laakiin macnihiisu uu weyn yahay man yuriidillaahu bihi khayran yufaqihu fi diin. xadiidkaas macnihiisu maaha qofkii ilaahay khayr la doono diinta ha xifdiyo yacni ha diraasiyo waa ha fahmo yacni haddaada wax adiga aada fahmin weliga haddaa ag fadhisid sidii laga rabay oo mataqaanaa dameer hilba saaran yihiin baa noqonaysaa oo ka baahan. marka waxaa loo baahan yahay yaan tafsiirka qur-aanka laga bilaabin sidii dad kale soo dirsada yeelaan. tafsiirku waa luqad carabiga ilaahay ku soo dejiya qur-aanka luqada ha la barto qur-aanku ku fasir maayo ha laga barto dadka u ahalkaahu yaqaana culumta hoos ha laga soo bilaabo meesha ugu sarraysa sidii nidaamku ahaan jira ha lagu barto. qof la yidhi war culummada diinta loo xilsaaray adugu waa ka beri baa tahay adugu dukaan furo shaqayso ama wax kala qabo ma jiro qof kasta mas-uuliyadda way saaranta. marka dadkan ha loo sheego shaqooyinka kala hayo diinta aan baranayn mas-uuliyaddooda in aysan xambaarayn intaana qof kasta laga rabo. qof kasta oo idinka mida waa daaci risaalada ilaahay gaarsiinaya ummadda kana run sheegaya. marka waxaa ka run sheegaysaan waa inaad barataan adinku marka hore. walaalayaal mashaayikhdii annagu aan maanta sheeganaynay wax kale ma ay qaban jirin kitaabkaas ilaahay bay baran jireen waa ku camal fali jireen dadkay bari jireen adinkan intii baa laydinka rabaa. haddii intiina samaynan ayaga magacooda u daaya magacyo kale in la sheegto waa markaas yaa alfulaani alqansax iyo alquraci. dhammaadka kadib waxaan codbaahiyaha la dhex qaadnay qaar ka mid a xeertii ka faa'iidaysatay kitaabka ayagoo nala wadaagay dareenkooda halkaana fariin uga direen da'yarta kale ee waxbarata. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala mahad ugu sugnaatay maantay in halkaan noogu soo dhammaaday kitaabkii aadka u qiimaha badnaa kitaabka minhaajka ah rubciisii ugu dambeeyey ayaa maanta halkaan noogu soo dhammaaday. ilaahay subxaanahu watacaala ayaan uga mahad celinaynaa. waxaa weliba muddo gaaban rubciisii ugu dambeeyey halkaan noogu dhammaynayay sheekheena jaliilka sheekh cali maxamuud faarax oo looga garan og yahay kuna caan ah sheekh cali qubays. markaskan oo ah maraakista diinta islaamka lagu akhriyo ee markasu daarilmu'miniin markaska weynaa ee sheekheena jaliilka ah ay waqfay sheekh cali cilmi yare ayuu halkaan kitaabka noogu soo dhammaaday. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan. sidoo kalena waxaan uga mahad celinaynaa sheekha uguna duceynaynaa ilaahay cimrigiisa inuu dheereeyo. sidoo kale waxaa kitaabka halkaan muddadaas gaaban ka faa'iidaystay dad badan arday badan oo ka kala yimid gobollada dalka qaarkood ka yimid magaalada muqdisho qaar badanoo jooga deegaanada qaar ka imaanayay ayaa halkaan casharka ugu soo dhammaaday kitaabka maanta ugu soo dhammaaday. falilaahi alminnatu waxaa nagala soo qayb galay culamaau diin waaweyn sidaad arkayseen halkaan kala soo qayb galay. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay uga mahad celinaynaa. waxaan sidoo kale aan faraynaa aan dhiirigelinaynaa dhallinyarada kale inay sidaanoo kale xafladaha diiniga ay ka soo muuqdaan kutubtoodana ay soo bandhigtaan laguna dhiirigeliyo ardayda in maalintaanoo kale farxaddooda lala qaybsado sida insha allahu tacaala sida maanta halkaan ka dhacdoo kale. waxaa maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay inuu kitaabkii minhaajka ahaay rubcii u dambeeyey noogu soo gabagabooyey madrasadan qiimaha badan
oo noo soo gabagabeeyey sheekheena Sheekh Cali Maxamed Faarax aad iyo aad ayaan u faraxsanahay kuwa ku camal fala oo cilmiga lagu intifaaco Allah ka yeelo annagana kuwa ku camal fala si sheekhu noo baray ummadda islaamka xilligan waqtigan la taagan yahay cilmiga barashiisa u baahan u sii bar Allah naga yeelo waxaan isku imaanay adeera ka hadlaynaa inaan Ilaahay nicmadiisa ka sheekayno isku dhiirigelino kitaabka in la barto loo camal falo dadka la sii gaarsiiyo sidaas ayaa isku dhiirigelinaynaa waxaa maanta noo dhamaaday kitaabkii minhaajka la oran jiray waxaana loo dhameeyay sheekheena Sheekh Cali dadka oo dhalinyaradana daawanayso iyo kuwa oo daawanteedona waxaa ka codsanaynaa oo ku dhiirigelinaynaa inay u dirsadaan kitaabkaas la barto diinta Ilaahay la faafiyo saas insha Allah isku dhiirigelinaynaa kitaabkan ayaa ka mid ah kitaabada ugu waaweyn ay ictimaadaan culimada Shaafiiciyada ayadoona lagu akhriyay muddo gaaban oo fasaxyo ku dhex jireen bilowgii kitaabkan ayaa ku beegnaa bishii Ramadaan muddo ku dhow 2 bil iyo xoogaa uu kitaabkan socday ayaa waxaa lagu akhrin jiray mawlacii weyna ee jamaacadan ee ahaa fadhiga jamaacadan oo noo waqfay mu'assiskii jamaacadan Sheekh Cali Cilmi Yare maantay ayuuna soo gabangabooday Maxamed Cabdi Cadde Hadiyuddin TV magaalada Muqdisho.